warkii hore war soo dhaaf islaantii Swede Amy Gerald islaantii waa hadashay afkay furatay waxay tiri aniga waxaan sameynayay maan isogeyn dadka Soomaaliyeed waxay igu sameeyeen rag iyo dumar waxa la yiraahdaa black magic ama sixir haddaba marka waxaan wax jira ma yihiin oo lagu sameyn karaa dadka gaalada ah Soomaalidu sama ku shaqaystaan dadkii programkan ku jiray ma ku shaqaystaan yes ha waxay u tageen Mombasa waxay u tageen Muqdisho meelo badan bay u tageen islaanta maalinta xafladda loo dhigay maryaha la saarayo iyo waraaqaha loo dhiibayo oo dhan waxba lagu soo wada akhriyay aqliyadiina waa inaad ka shaqaysiisaan dad baa halkan jooga $10,000 bishii niman saaxireena Mombasa jooga iyo niman kale Uganda jooga iyo niman kale kulligood hawshan way ku shaqaysanayeen waana waxay yaqaaneen black magic ama sixirka ama nasraadku waa wax jira oo la sameeyo ilaahay waa ugu ogyahay qaarkood halkan intay uga tageen diyaarada u raaceen oo Muqdisho u tageen oo qaar halkan jooga yiraahdo anna ii soo qaad ba ka dhacday anna ii soo qaad xalwa kismaayo anna ii soo qaad ka dhacday dhawaan waxa soo bixi doona baaritaan dheer kulligood iyaga isla sheegay sababtoo ah Soomaalidu Muqdisho jooga iyo $10,000 bishii Soomaalidu gobolkan aad bay wax ugu shaqaystaan waliba xagga dumarka aad bay u yaqaanaan raguna kama dhacaanba marka waxaan idin leeyahay hadal lagu sameeyo waana wax dhici kara gaalada waa lagu sameeyaa muslimka waa lagu sameeyaa nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la sirxay marka waxaan waa wax jira waana wax dhici kara Soomaaliya taa ogaada boqolkiiba 90 dadkii Soomaaliyeed ee businessyadan ku jiray rag iyo dumar isma qariyaan iyagana iska shifa sirna ma laha dadkii waxa isla sameeyay rag iyo dumar iyaga is wada sheegay gabadhan Amy la yiraahdo Swede Gerald Amy black magic aqliyadan inay shaqayso ayaa loo baahan yahay qof kasta maskaxda Ilaahay wuxuu loo siiyay inaan wax ku garanno waxna ku cabirno Ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya dib ugu noqdo buraamburkii iyo xafladii loo dhigay gabadh cadaan oo wadankan ku dhalatay oo wax ku baratay oo jaamacad ka baxday sidee ayay u khiyaami karaan dad Soomaali seebay ku dhici kartaa in arinta intaas leeg programka intaas leeg qof cadaan uu lacagta inta leeg dad Afrikaana oo masaakiin oo qaxooti oo siya ku noqdo videoga cabirana meeshan wax weyn baa jira Amina waa la soo habeeyay Sheekh Rusheeye sida ugu dhaqsaha badan Amy ha loo raadiyo hadii Ilaahay yiraahdo oo qaarkood waxna qorin waxna akhrin boqolkiiba 97 dadka programkan ku jira waa dadan cilmi lahayn waa dadan jaamacada ka bixin waa dadan iskuul ka bixin qaarkood waa loo tarjumaa tusaale waxa idinku filan islaamiga sectioneedka ku jiray baa idinku filan qaarkood waa loo tarjumaa waxba ma yaqaanaan seebay markaa ku dhici shaasharkeeda wax maanta haye waa shaasharkii waxa waaye Amy warbisin waxa laga bilaabay nin baraka male birweeyaan oo islaamku badbaadiya Allah barakeeya xafladeena bilicda weyn waxa bandhigaan iska loo baqalo camiray war Amy bilan weeya gabadha la beegsan karin oo Amy bilan weeya gabadha la beegsan karin Swede Gerald Amy ba goobta loo camiray Swede Gerald Amy ba goobta loo camiray for you this fella our adiga faakaron waka Swede Gerald Amy 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 the Swede girl for our can Swede Gerald Amy 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 ada ubaxan iskale Swede Gerald Amy ada ubaxan iskale
bulshada Soomaaliyeed baaqayaan u diray bulshada Soomaaliyeed baaqayaan u diray waxaa burjigeeda bidaaheeda baawar kale war emi bilan weeya gabadhan la beegsan karin MD oo idilna iriday ka wada baxeen MD oo idilna iriday ka wada baxeen awaad kartideeda maxkamadii waa eryeen ubaxan ku sida ada emiye iskale waka sweet girl emiye ada ubaxan iskale sweet girl emiye ada ubaxa waka hadii emiye la yiri miyaan meel joogaya